qofka shaqaalaha marka la qiimeynayo iyadoona lagu soo xulayn ama mataqaanaa inuu agaasimaha guud uu xoghayn u ahaa ama mataqaanaa inuu wasiirka xoghayn u ahaa ama inay wasiir ku-xigeenka isku wanaagsanaayeen hay'adda shaqaaluhu waxay dejisay xeerka shaqaalaha dawladda ee xeer 97/2022 waxaa kaloo dejisay 16 habraac oo shaqaalaha lagu soo xulo waxa isku xiran markaa habraacyada shaqaalaha lagu xulayo iyo marka hore oo qofka shaqaalaha loo diyaariyo wax la yiraahdo GD job description qofka shaqaalaha markaa waxa laga rabaa heerka uu ka gaaray qorshihii loo sameeyay bilowgii sanadka ayaa la eegaa deetana markaas la qiimeeyaa heer intee leeg ama in intee leeg buu hantay shaqadii uga taalay institutionkiisa markaas qofka la qiimeeyaa qiimeyntu sidaas ay ku timaadaa marka koowaad abaalmarinta shaqaalaha la siiyo abaalmarintu ma ahan uun sidii tiimkiiga horeeyay qaarkood sheegayeen quraarada halkan taala ama shahaado la siinayo wasaaradaha dalku boqolkiiba 90 waxay leeyihiin subhead leeraa dhiirigelinta shaqaalaha dawladda oo loogu talagalay qofka shaqaalaha ay markuu hanto in la dhiirigeliyo in laga kabo intaa waxa dheer qofka shaqaalaha haddii markii hore aad ogeydeen hay'adda shaqaaluhu iyadoo oo xoojinaysa dardargelinaysa barnaamijka tayeynta shaqaalaha dawladda sanadkii 2023 dhamaadkiisii golaha wasiirada oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu shir gudoominayay wax la ansixiyay siyaasadda leeraa siyaasadda mushahar bixinta iyo qaabaynta darajada shaqaalaha oo afka qalaadna lagu yiraahdo pay and grading policy siyaasaddaasi oo ka sheekaysa ama u dhigan in qofka shaqaalaha ahi 25 jeer dalici karo halka markii hore qofka shaqaalaha ahi 4 darajo uu mari jiray A iyo B iyo C iyo D hadda siyaasaddan way ka duwan tahay haddii markii hore ay ciriiri ku ahayd mataqaanaa qofka shaqaalaha inuu dalaco haddii qofka shaqaalaha in badan daba socon jiray inuu mataqaanaa darajada in loo kordhiyo uu mataqaanaa waqti badan kaga lumi jiray hadda siyaasaddan waxa ay sheegaysaa in qofka shaqaalaha laga rabo requirement shuruudahaas markuu buuxiyana automatic uu dalacayo siyaasaddan qaabkii loo dalacayaa marka waxa loo dalacayaa vertical iyo horizontal 25 jeer buu qofkuna dalacayaa wuxuu ka soo bilaabayaa D9 oo ah darajada ugu hooseysa ilaa uu ka gaarayo A4 oo darajada ugu sareysa siyaasaddan oo u xiran agaasimayaasha guud shuruudaha ku xiranayna dhammaanteed waxay ku xusan yihiin siyaasadda 4 institution ee u horeeyay baanu hadda pilot u qaadanay oo ku tijaabinay oo aan uga mahadnaqay agaasimaha guud ee tamarta oo uu ka mid yahay institutionada lagu tijaabiyay ee pilotka loo qaatay marka miisaaniyadda la ansixiyana institutionada hadda siyaasadda ku mushahar qaadanaya ay noqonayaan ka hay'ad ahaan anigoo ku hadlaya afka shaqaalaha guud ee qaranka oo jooga dhammaan 6 gobol ee dalka siyaasadaha iyo habraacyada lagu horumarinayo shaqaalaha dawladdu inta waa ka sii soconayaan waxa hadda dhamaaday oo isaguna madaxweynaha iyo golihiisa wasiiradu ansixiyeen xeerkii howlgabka iyo xaqsiinta qaranka oo hadda ogeydeen qofka shaqaalaha markuu muddo shaqeeyo hadii markuu daadiisu weynaato ee shaqada mataqaana uu sii wadi kari waayo uu xafiiska agtiisa fadhiyi jiray wixii loo oran jiray buulka hebel buulku ku jira wad maqli jirteen imika qof kasta oo shaqaalaha marka xeerkaasi baarlamaanka hor yaala marka la ansixiyo qof walba isagoo sharaf iyo karaamo leh ayuu saamigii loogu talagalay ee xeerka howlgabka u jideeyay oo ku qaadan doona isagoo sharaf leh oo gurigiisa fadhiya xeerarka iyo siyaasadahaasiba dhammaantood waxay dhiirigelinayaan barnaamijkii tayada shaqaalaha dawladda sanadkan waxa qorshaysan in 3 qodob oo waaweyn laga shaqeeyo qodobka koowaad in shaqaalaha dawladda loo raadiyo caymis ku filan caymis caafimaad oo ku filan oo iska kaashanayaan hay'adda shaqaalaha iyo mataqaanaa commissionka caymiska qaranku sidoo kale hay'addu waxay dhiirigelinaysaa sanadkan in shaqaalaha qaranku ama hay'adaha dawladdu ay ku shaqeeyaan goobo amnigoodu sugan yahay oo mataqaanaa laga taxadiray waxaanu diyaarinaynaa hadda oo gacanta ku haynaa siyaasadda la yiraahdo siyaasadda badqabka iyo caafimaadka shaqaalaha dawladda sida waxa soo dhan waxaan uga sheekeynayaa inaan idin tuso mataqaanaa kaalinta aad kaga jirtaan qarankan idinka qurxinaya haddaydan idinku jirinna qarankani ma jirayo marka koowaad iyo marka labaadba waan idinka mahadnaqayaa waan idin hambalyeynaya tiimka guuleystay iyo tiimka kalaba wasaaradda macdanta iyo tamarta waa wasaaradii u horeysan horta ka soo qayb gala anigu iyagoo shaqaalooga la abaal marinaya sanadkan
wasaaraddan macdanta iyo tamartuna waa wasaaradaha anagu hay'adda shaqaalaha markaanu nahay aanu ammaano ee aan ku ammaano shaqo wanaagga marka laga yimaado tiimka DG-gu ugu sareeyo waxa kale oo bogaadinayaa oo aan u mahadnaqayaa agaasimihiina HR-ka Axmed oo isna kamid ahaa 10kii HR sanadkii hore la abaal mariyay shaqo wanaagiisa iyo mataqaana sidoo shaqada wanaagsan u leeyahay hay'adda shaqaalahana lagu abaal mariyay waxa kale oo idin ballan qaadaynaa inaad noqotaan institution-ka u soo horeeya ee siyaasaddan pay and grading-ka lagu fulin doono haddii la yiraahdo ilaa 10 institution baan qorsheynay wasaaradda macdanta iyo tamartu qayb bay ka tahay in siyaasaddan shaqaalahaygu 2025 ay ku mushahar qaataan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.